Jubbaland waxaa dhammaaday waqtigii mudaxireedka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulkaas ee intii uu curtayba isagoo uu xukunkaasi hayay 22 Agoosto 2019 ayaa ahayd markii doorashadii loogu kala tagay Axmed Madoobe lagu doortay doorashadaas ayaa ahayd mid Jubbaland wada jirta ay ku kala dhaqaaqday deegaanada Soomaalida maamulada ka jira waxqabadka ugu weyn ay ku faanaan waa inay kursiga ka tagaan markii doorashada la gaaro balse halkan waa Jubbaland Axmed Madoobe waxay mucaaradkiisu sheegaan inuu qaba aragti ah kursiga aniga ayaa iska leh kamana tagaya ilaa xilli aan la aqoonin hogaamiyaha Kismaayo wali ma cadaynin uu doorasho qabanaya yeen kale balse waaqac yaala tagtadii hore shakhsiyadda Axmed Madoobe ayaa sheegaya in kursiga madaxtooyada Kismaayo uusan qof kale uga dambaynayn ugana kacayn waqtigan waqti dhamaadkan uma fududo hogaamiyaha Jubbaland sidii 2019 dastuurka Jubbaland oo xadidaya waqtiga madaxweynuhu kursiga joogayo dalalka dariska oo diidan sii waarista Axmed Madoobe guuxa siyaasiyiinta gado garab la'aanta hogaamiyaha kursiga ku raagay oo isbiirsaday ayaa caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban damaca cusub ee Sheekh Axmed Maxamed Islaam dastuurka Jubbaland ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho dastuurada Soomaalidu qorato walaw aan si rasmi ah loogu dhaqmin loogana dheegto qodobada magacaabista ama xilka qaadista quseeya balse qodobada ugu fiican ee lagu daray waxa kamid ah midka xadidaya waqtiga xilhaynta hogaamiyaasha Jubbaland waxa ku qoran in madaxweynuhu uu hayn karin laba kaltan ka badan oo min 4 sano xafiiskana joogi karin balse maamulka Axmed Madoobe waxa la soo warinay in qodobkaas uu qoray oo isagoo imika ay bedeli karaan markii ay doonaan bartamihii sanadkii 2022 baarlamaanka idman ee Jubbaland waxay go'aamiyeen mudaxileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka laga dhigo 5 sano taas oo ay hadda madaxtooyada Kismaayo ku doodayso in 5 sano aan laga hadli karin qaar ka mid ah dadka diidan aragtida Jubbaland ayaa leh xataa haddii la go'aamiyeen mudaxileedkaasi muddada laga dhigo hore iyo gadaalkan uu shaqeynayo dood ayaa ka taagan hadda guddi gaar ah oo ay hormuud yihiin qaar ka mid ah madaxweyne ku-xigeenada Jubbaland ayaa ka shaqeynaya taabagelinta qorshaha qeexaya in madaxweynuhu tartami karo intii uu doono iyadoo la tirayo qodobka in laba mudaxilood oo kaliya qofka hoggaanka uu hayn karo baarlamaanka ayaa dhawaan dhaqaalaysiiyay ay qodobkan meel mar uga dhigaan balse imaanshaha dhammaadka waqtiga muddada xilhaynta Madoobe ee 22 Agoost ayaa ka dhigan in bedelaad aysan suuragal ahayn waqtigan dalalka geeska Kenya iyo Ethiopia oo diidan Axmed Madoobe eegayana marxaladda Kismaayo iyo damaca taagan doorashadii kalkii hore Axmed Madoobe waxa uu haystay Kenya oo ahay saaxiib aad ugu dhow talaabo kasta u samaysay maamulkii fiila Soomaaliya ee farmaajo iyo khilaafka kala dhaxeeya Kenya ayaa Kismaayo siiyay fursad uu ku ahaado saaxiibka baariga ee Kenya kala wareegga siyaasadeed ee xukunka fiila Soomaaliya ee isbeddelka ku yimid hogaaminta Kenya waxay keentay inuu meesha ka baxo wixii kulminaya labada dhinac si taasi la mid ah Ethiopia ayaa u aragtay Axmed Madoobe siyaasi aan wax lagu darsan karin wehelaanta Kismaayo ka soo wajahday Addis iyo Nairobi waxa ay ku tahay calaamad xukunkiisa ku soo wajahana Addis Ababa inkastoo xagaagii sanadkan ay jirtay booqasho Axmed Madoobe ku tagay oo ay ka shaqeysay dawladda Imaaraadka Carabta haddana in labada dhinac isqaataan waa socon weyday midda la hubo waa inay hadda jiraan dhaqaaqyo ka soo jeeda danaha Kismaayo oo si xawli ah ku koraya 3 mucaaradka Jubbaland guux ka xoogankii 2019 oo diidmaha ayaa ka socda Jubbaland guud ahaan siyaasiyiin aad u badan oo rajo ka qaba inay galaan doorasho xalaal ah iyo tartan furan aadna u aabulan ayaa markan safka hore kaga jira inay soo afjaraan xukunka Axmed Madoobe siyaasiyiinta ku haybta ah hogaamiyaha muddada dheer ee Kismaayo ayaa markan la galaya dagaal siyaasadeed maadaama aysan xasaasiyad ka qabin dhinacyo kala duwan oo wadamada darisku ay ka mid yihiin mucaaradka dadka dhaliilaya ayaa tabinaya in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ay tahay isku duubni la'aanta iyo mowqifka ay leeyihiin ah mid aan midaysnayn xubnaha gada waxa ay doonayaan kursiga Axmed Madoobe ku fadhiyo sidoo kale xubnaha saami qaybsiga la ah hogaamiyaha kursigan ku fadhiyana waxa ay doonayaan in iyagu ay bedelaan labada dhinac si buuxda uguma midaysnayn marka hore laga shaqeeyo isbedel taabagala kadibna tartan la aado madaxweyne Axmed Madoobe ayaa dadaal xoog leh ku bixinaya hadda sidii uu abuuri lahaa kudlad mucaarad isaga ka soo horjeeda oo kaarkaasi qaadata xubno kale oo ka aragti duwanna waxay qaarkood xaqiijiyeen inuu bilaabay la kulmidooda xubnahaas kuwaas oo ay ka wada hadlayaan sida iyagu ay noqon lahayn matalayaasha mucaaradka rasmiga ah ee lagala hadlo arrimaha Jubbaland 4 gobolka Gado waa gobolka ugu weyn 3 gobol ee Jubbaland
waana gobol ka gaar ah maamulka Axmed Madoobe tan iyo isdoorashadii 2019 markaas oo hoggaanka Gado ay sheegeen inuusan Axmed sharciyad maamul haysan dowladda federaalka ay goobtan ku dagaalameen dhawaan waxa gobolkaasi tagay ku xigeenka Axmed Madoobe Maxamuud Sayid Aadan waxa walka kula kulmay siyaasiyiinta qaybahooda diidana waxaana la isku raacay in la doono Jubbaland dhamaystiran oo hoggaankeeda si xor ah loogu tartabo tan waxay ka dhigan tahay inuusan Maxamuud Sayid Aadan dhaafi kana rabitaanka Gado waa doorasho ku dhacdo waqtigeeda taasoo aan waqtigan muuqan haddii doorasho dhici weydo waxa mar kale cidka isku shareeraya xaalka Jubbaland loo wada dhan yahay in Gado gacanta Jubbaland gasho waqtigan Axmedoobe waxay ku ahayd caqabad in mashruuci Gado waa maqan tahay uu sii socdo ayaa ahayd faa'iidada ugu ballaaran ee maamulkan uu helayay laakiin in kiiska gobolkan dhamaado waa xujo adag oo maareynteeda ay madaxweyne Axmed Madoobe caqabad ku tahay xaalka Gado diinada Kenya iyo Ethiopia jiritaanka mucaarad xooggan oo ay saaxiibadiisii shalay ka mid yihiin iyo sharciga Jubbaland ee muddada dib u tartanka ayaa caqabadaha ugu daran ee haysta madaxweynaha Jubbaland ee waqtigu hadda uu ka sii dhamaanayo balse Axmedoobe waxa uu haystaa saddex arrin oo uu nafis ku dareemayo waqtigan kuwaas oo ay adag tahay inay ka difaacaan dabaylaha ku socda kow fila Soomaaliya waxa uu tahay goob uu ku dareemayo naacow siyaasadeed maadaama labada dhinac ay hadda ku midaysan yihiin siyaasadda waqtigan Xamse oo ah ra'iisul wasaare ahaana ninkii qabtay doorashadii Agoosto 2019 ee saddexii kan mid la bixee wuxuu sidoo kale dhacsan yahay siyaasadda sheekhiisa labo sidoo kale Madoobe wuxuu haystaa jeebka sarena ugu jira hal sano oo muddo-kororsiya kaasoo Xasan Sheekh ugu sharciyeeyay waliba dhaqangalkiisa aan la gaarin waxay soo muuqataa in Madoobe sanadka uu sarrifanayo si uu helo jid uu ku xalliyo caqabadaha haysta arrinka saddexaad ee uu nolorada ku dareemay Axmed Madoobe waa in dhammaan madaxda dowlad goboleed isku raacsan yihiin aan wada joogno isku marna xilku ka dhamaanayo marka adeegta caqabadaha iyo fursadaha Axmed Madoobe waxa dhinac u kala ridi kara sida qolo kasta doonisteeda ay uga shaqeyso walow khibradda Axmed Madoobe markasta ay siinayso inuu yahay tiir dhaaban السلام عليكم ورفارح سيادته وعليكم السلام ورعلي ويورن وفي عنا سيتهاي ورهالكي u socotaa niyo warniyo waxa igu sii tuurtaa suuqan mid walaalkii baan la kulmay halka kula balansanahay warniyo xaaskiiba message soo diray soo le ilmihii school fees kooda laga rabay soo dir niyo xawaaladan ba sii maraya ii kaad war maxaad ka wadaa xawaalad war xawaalad leena adeega paysi la soo deg lacagtoodana si toos ah ugu dir telefoonkooda ya oo adeeg noocaas miyaa jira war hadda ayaan $1 ku diray warniyo waa arrin wanaagsan bal hoo ii soo deji haddii aad ku nooshahay America Europe Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeega paysi waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC Zad Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa paysi ku soo dhawaad application-ka Faras waa application aad ka dalban karto taksiga kuugu dhow haddii aad ku sugan tahay Nairobi Kenya isla marka aad la soo degto waxaad helaysaa 200 oo shilin taas oo ah Faras Miles waxaad ka dhigan kartaa kaarka ku hadalka internet ayaad ku bedelan kartaa M-Pesa ayaad ku shuban kartaa iyo waliba inaad u xawiisho qoyskaaga iyo saaxiibadaada safar kasta oo aad raacdo Faras waxa ku ururaya dhibco fadlan kala soo deg Play Store-ka iyo waliba sidoo kale App Store-ka